الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku guda jirnay maadada biology-ga fasalka 12aad ee dugsiga sare ee Biology Secondary Form 4 waxaan ku guda jirnay cutubka labaad ee endocrine system habdhiska qanjirada marinka la insha Allah dina casharkeena hore u sii wadanaynaa bismillaah waxaan ka hadlaynaa antagonistic hormone hormoonada iska soo horjeeda ama hormoonada ishaasta ama hormoonada lidka isku ah. A number of hormone tiro hormoona ah work together in pair ayaa u wada shaqeeya si lamaana ah to regulate the levels ay u xukumaan heerarka of critical substances walxaha oo muhiimka ah. These hormones hormoonadan are referred waxay u taagan yihiin to as antagonistic hormone hormoonada ishaasta ama hormoonada iska soo horjeeda ama hormoonada oo lidka isku ah because maxaa yeelay their action is ficiladoodii have opposite effects saameyn iska soo horjeeda ay leeyihiin. Glucagon and insulin hormoonka loo yaqaan glucagon iyo insulin are example of antagonistic hormone hormoonada hawaaye lidka iska ah waaye. Glucagon hormoonka loo yaqaan sokorta ayuu sare u qaadayaa, insulin hormoonka loo yaqaan sokorta ayuu hoos u dhigayaa. Endocrine glands oo qanjirada oo marinka la and their hormones iyo hormoonadooda. Endocrine systems habdhiska qanjirada marinka la marinka aan lahayn includes waxaa ka mid ah all the glands ayaa ka mid ah qanjirada oo dhan the secretes laga soo deynayo hormones dhacaan laga soo deynayo waaye. waxaa ka mid ah pituitary ayaa ka mid ah, thyroid ayaa ka mid ah, parathyroid ayaa ka mid ah, iyo adrenal glands ayaa ka mid ah, pancreas ayaa ka mid ah, ovaries ayaa ka mid ah, testes ayaa ka mid ah, pineal glands ayaa ka mid ah, iyo the thymus glands ayaa ka mid ah. Illustrates waxaa lagu tusay in figure 2.1 jaantuska 2.1 ayaana lagu tusay. Jaantuska 2.1 waa kana waxaa lagu tusay hormoonadii dhan ayaa lagu soo koobay. Hypothalamus ayaa ugu horeeyo oo hormoonada oo dhan hypothalamuska ayaa laga xukumaa. Hypothalamuska waxay soo deysaa marka waa laba hormoon oo si direct lagu soo daayaa oo antidiuretic hormone iyo oxytocin. labadaas hormoon waxaa laga soo daayaa pituitary glands gaar ahaan posterior pituitary glands ayaa laga soo daayaa, laakiin waxay si toos ah ugu xiran yihiin maskaxda ay si toos ah ugu xiran yihiin. Anterior pituitary glands kana isagana waxaa soo daaya dhowr hormoon ayuu soo daayaa isaga marka oo si toos ah ugu xirna maskaxda. Capillaries ayaa ku xiraa maskaxda. Pituitary glands wuxuu qaybsamayay laba anterior iyo posterior. Marka posterior si toos ayuu ugu xiran yahay maskaxda. Labadaas hormoon ayaa laga soo daayaa antidiuretic hormone iyo oxytocin. Posterior marka kana waxaa waaye smooth muscle uterine wuxuu saameeyaa oo murqaha oo ilma galeenka ayuu wuxuu ka dhigayaa mid oo siman. Antidiuretic hormone sidoo kale kana wuxuu saameeyaa keliyihii oo adrenal glands wuxuu sameeyaa oo keliya uu sameeyaa kala dibideedka iyo kala gudeedka. Kala dibideedka wuxuu soo daayaa laba hormoon cortisol iyo aldosterone ayuu soo daayaa. Si directly looma soo daayo laakiin si indirect la soo daayo waxaa sameeya hormoonka loo yaqaan adrenocorticotropic hormone. Kala gudeedkana wuxuu soo daayaa adrenal medulla wuxuu soo daayaa laba hormoon epinephrine iyo non-epinephrine. Thyroidka kana waxaa laga soo daayaa qoorta glands saddex hormoon ayuu soo daayaa oo kala ah calcitonin oo thyroxine iyo triiodol. Oxytocin kana hormoonkan isagana wuxuu saameeyaa skeletal muscle murqaha. Growth hormones lafihi ayuu saameeyaa. waa kana testiskana anterior pituitary gland sidoo kale wuxuu saameeyaa testiska xiniyaha ayuu saameeyaa. Ovaries sidoo kale ayuu saameeyaa ugxanta.
oo lab dhadig ah iyo kan oo testiska labka laga helayo. Pituitary gland qanjir maskaxeedka. The pituitary gland qanjir maskaxeedka is a small gland waa qanjir yar waa with the diameter 1 centimeter cabirkiisna waxaa lagu qiyaasaa 1 centimeter. That is located wuxuu ku yaalaa at the base the hypothalamus salka maskaxda hypothalamuska ayuu ku yaalaa. Is consist of two lobes wuxuu ka kooban yahay laba kuskus ayuu ka kooban yahay ama laba qaybood ayuu ka kooban yahay oo kala ah anterior pituitary glandis iyo posterior pituitary glandis. Anterior pituitary glandiska is consist of specialized glandular cells unugyo qanjiro oo khaas ah ama hormoonsan ayuu ka kooban yahay. That secrete hormones wuxuuna soo daayaa hormoon ayuu soo daayaa with various functions waxayna qabanayaan shaqooyin kala duwan which in turn waxayna isku bedelaan regulate the secretion of other glands qanjirada kale la soo daynaya ay xukumaan. These hormones include hormoonadan waxaa ka mid ah growth hormone hormoonka koriinka. It stimulates wuxuu cariyaa cell division qaybsan unugyada and growth wuxuu koriyaa special bone lafaha gaar ahaan lafaha aniyo muscular cells iyo unugyada murqaha in childhood qaangaaritaanka. Adolescence waxa way da'dan idan waxa u dhaxaysaa 15 ilaa 25 ay u dhaxaysaa. It's also essential sidoo kale waxay muhiim u tahay for proper metabolic regulation. Wuxuu muhiim u yahay marka wuxuu xukumaa dheefsiga oo saxda ayuu xukumaa. Thyroid stimulating hormone oo laga soo gaaro TSH ayaa laga soo gaaro. Stimulates wuxuu cariyaa thyroid gland qanjirka thyroid ee cariyaa to produce la soo saaro the hormone oo thyroxine. Sidoo kale wuxuu soo saaraa triiodothyronine iyo quercetin. Prolactin BRL ayaa laga soo gaaro. This is the best waa midka ugu muhiimsan waaye oo noun loo yaqaan for stimulating oo the mammary glands wuxuuna cariyaa qanjirka caanaha ayuu cariyaa to produce la soo saaro milk caano in mammals waxa waaye naasleyda after giving birth markii ay dhalaan caruur ama ilmo ay dhalaan. Follicle stimulating hormone oo FSH laga soo gaabiyay. It is required waxaa loo baahan yahay hormoonkan for development of ovaries follicles. Hawa kiishashka ugxanaanta ay horumariyaan in female waxa way dhadiga. Require mana female ka ay u baahan yihiin waxay u horumariyaan kiishashka ugxanaanta ay horumariyaan. In male waxa way labkana it is required waxay u baahan for development of sperm waxa horumarinta shahwada ay u baahan yihiin hormoonkan. Luteinizing hormone LH laga soo gaaro stimulates wuxuu cariyaa the production of estrogen soo saaritaanka estrogen hormoonka loo yaqaan progesterone oo estrogen waxa hormoonkani oo regulate menstruation cycle and iyo progesterone hormoonka loo yaqaan regulate pregnancy. By the ovaries waxaa laga soo saaraa waxaan sidayaasha laga soo saaraa an iyo isniidis waxaa loo baahan yahay for evolution ugxanaanta in female labka in female dhadiga. Reproductive cycle waxaa meertada taranka. In male waxa waaye labka it is stimulates in male hormoonkan oo luteinizing hormone wuxuu u qabanaya in male labka. It stimulates wuxuu cariyaa the testis xiniyaha ayuu cariyaa to produce loo soo saaro testosterone hormoonka la aqoon testosterone. Which is needs waxaa loogu baahan yahay for sperm production soo saaritaanka shahwada an iyo for development horumarka of male secondary sexual characteristics astaanta jinsiga labaad ee labka. Okay, intaas waxay ahaayeen anterior pituitary glands ahaayeen oo inta laga soo daayay anterior pituitary gland inta waxaa ku qoran 5 hormoon ayaa ku qoran laakiin 2 hormoon ay soo daayay anterior pituitary glands. Posterior pituitary glandska oo isna wuxuu soo laba hormoon oxytocin iyo antidiuretic. The posterior pituitary glands abiris wuxuu muuqdaa fibrous qaab miiqa ay u muuqdaa because maxaa yeelay it contains wuxuu kooban yahay axons miiqadaas axonka ee laga wada cuno oo ka soo baxayo
oo cell body kasoo baxayo oo dendritiska oo hargaha sameynaya waxa waaye fibrous loo yaqaana, waana axonka ayaa laga wadaa. That originated asalkiis wuxuu ka imaaday in cell bodies jir unugeedka ayuu ka imaaday within the hypothalamus, wuxuuna ku yaala maskaxda ayuu ku yaala oo hypothalamuska. Two hormones wuxuu soo saaraa laba hormoon oo kala ah oxytocin and antidiuretic hormone oo ADH oo laga soo gaay antidiuretic hormone are made waxay ka samaysiin by nerve cells unugyo dareemoodyaal ay ka samaysiin the hypothalamus, waxayna ku yaalaan maskaxda hypothalamus. These nerve cells unugyada dareemoodyaashana that secrete waxay soo daayaan hormones dhacaano are called waa loo yaqaan hormonaas neuro secretory cells, unugyo dhacaan soo deynaya oo haddana kasii kooban marka dareemayaalka kooban ayaa loo yaqaana. Antidiuretic hormone oo ADH laga soo gaabiyay antidiuretic hormones oo laga soo gaabiyay anti oo D oo laga soo diuretic iyo H oo laga soo gaabiyay hormone stimulate waxay caariyaan water reabsorption dib u soo nuugitaanka biyaha by kidneys waxaan laga soo nuuga kiliyaha ay laga soo nuugaan iyo indubin sidoo kale waxay qabanayaan ama shaqadoodu waxay tahay so inhibitor diuresis soo saarad kaadidii waxaa la soo saarayay ay waxaa ka hortagayaan waxaa way joojinayaan kaadidii la soo saaray. Diuresis macna waa lagu fasiray urine production waa soo saaritaanka kaadida. Oxytocin hormoonka loo yaqaan oxytocin stimulates wuxuu caariyaa the milk ejection reflex falcelinta caana kusoo shubitaanka the urine cycling inta lagu guda jiro nuugitaanka. Sensory receptor dareem qabtayaasha in the nipples ee xaadirka ku ah dareem qabtayaasha dareema in the nipples ee xaadirka ku ah cibta naaska. Sensory impulses waxaa dareem guji dareemoodyaal ay dirayaan to the hypothalamus waxayna u dirayaan maskaxda hypothalamuska which triggers waxay kicinaysaa ama ay carinaysa the release waxay soo deynaysaa of oxytocin hormoonka leh oxytocin. Oxytocin is also sidoo kale need waxaa loogu baahan to stimulate in la cariyo uterine contraction soo ururitaanka ilma galeenka in women during childbirth haweenka inta ay ku guda jirto dhaliinka. Oxytocin secretion continues so deitaanki waxaa oxytocin waxaa la sii wadaya after childbirth markii hooyadan ay after childbirth in women markii haweenka ay dhalaan ama hooyada markii ay dhasho. Who is breastfeeding inta ay ku guda jirto marka oo quudinta naas nuujinta as a result waxay dhalinaysaa marka the uterine ilma galeenka of a nursing mother contraction wuu isku soo aruurinaya marka inta waxaa naas nuujinta lagu guda jiro an iyo retain wuxuu kusoo laabanaa to its normal size cabirkii caadiga ah kusoo laabanaa after pregnancy. haddana markii after pregnancy markii hooyadan uur ay qaado more quickly isla markiiba then the uterine mother markii haddana loo barbar dhigo uterine oo mother hooyada oo ilma galeenka who does not breastfeed aan nuujinaynin ama aan quudinaynin naas isla markii maxaa isku soo aruuraya meesha hadii hooyada fi aan ka bixiyo waa isku dhaxayacsan yahay waxaa si fiican muu kala soo saaro. waxaa laga wadaa markii hooyadan ay dhasho waxaa waaye ilma galeenkii ayaa isku soo aruuraya oo naas nuujinna waxaa markii hooyadan ay dhasho waxaa oxytocin wuxuu isku soo aruurinaya ilma galeenkii isku soo aruurinaya waxaana ka dhigaya marka mid oo iska normal ayuu ka dhigaya. xilligaas intii lagu guda jirin waxaa naas nuujin ayaa jirto. haddana markii hooyadan ay uur ay qaado isla markiiba haddana waxaa waaye uterinka ilma galeenka waxaa uu balaaranaya xilligaas oo pregnancy jirtana waxaa waaye oo wax oo naas nuujin ahna ma jirto. Pancreas ganaca the pancreas ganaca mostly contains badanaa wuxuu koobayaa exocrine cells unugyada qanjirada marinka leh ayuu ka kooban yahay laakiin specialized cells unugyo gaar ah oo abaysan ayuu ka kooban yahay inta pancreas oo ku jira
oo ganaca kor loo yaqaano the islets of Langerhans qanjirada islets loo yaqaan islets waxaa la isku dhahaa oo insulin iyo glycogen ayaa la isku dhahayaa function as waxay u shaqeeyaan oo aan endocrine glands qanjirada marinka la ay u shaqeeyaan ana pancreas laba wajiil waa qanjirada marinka lehna uu shaqeynaya oo exocrine loo yaqaano qanjirada marinka la'na uu shaqeynaya endocrine labadaba uu shaqeeyaa show in figure 2.7 jantuska 2.7 ayaan lagu this endocrine cells unugyada qanjiradana oo qanjirada marinka la'ana secret waxay soo daayaan 2 amino acids basic hormones laba hormoon oo asaasi ah oo amino acid ay soo daayaan that regulates the levels of sugar waxayna xukumaan sokorta heerarkeeda ay xukumaan inda blood ku jirta dhiigga insulin hormoonka loo yaqaano lowers the blood sugar levels heerarka sokorta ee dhiigga ayuu hoos u dhigayaa by stimulating soo caarinaya body cells unugyada jirka special muscle gaar ahaan murqaha to store glucose si loo keydiyo sokorta or amise use it for energy si loo isticmaalo dib loo isticmaalo marka la keydiyo ana store markaan leenahay glucose waxaa loo bedelayaa glycogen loo bedelayaa in contrast cagsigeena glucagon hormoonka loo yaqaano glucagon stimulates wuxuu carayaa release wuxuu soo daayaa of glucose ayuu soo daayaa into the blood stream waxaan lagu sii daayaa marka xididada dhiigga by the liver cells unugyada beerka ayaana laga keenay sokortaani ana sokorta waxaa lagu keydiyaa hadda hal banaa maqan laba meesh ku qoran oo maskal iyo liver iyo adipose tissue murqaha iyo beerka iyo adipose tissueska markii waxaa sokortan la geynayo oo liverka ama maskalka ama adipose la geynayo insulin ayaa qaabilsan markii la burburnayo dib loo burburnayo waxaa glucagonka ayuu qaabilsan sokorta iyo kor u qaadaya glucagonka insulin taas sokorta ay hoos u dhigaya markaas insulin hormoonka loo yaqaan secretis waxaa laga soo daayay by beta cells of islets unugyada isletiska ee beta ayaa laga soo saaray while halka kale the alpha cells of islets unugyada oo isletiska ah ee alpha ah secret iyaguna waxay soo daayeen glucagon ay soo daayeen mana unugyada laga soo daayay oo insulinta ayaa loo yaqaana beta cells unugyada laga soo daayay oo insulin ayaa iyaduna unugyada laga soo daayay glucagon ayaa loo yaqaana alpha cells loo yaqaana which acts waxay u shaqeeyaan ama ficiladooda antagonistic way iska soo horjeedaan marka insulin glucagon wuxuu soo horjeedaa marka insulin ayuu ka soo horjeedaa jantuskan ayaana lagu tusay pancreatic islet waa kana isledyada oo pancreatic ah of Langerhans ee qanjirada labadan ayuu soo daaya marka oo beta iyo alpha betada waxaa insulinta ayaa laga soo daayaa halkan ayaa laga soo daayaa alpha waxaa laga soo daayaa oo insulinta ayuu ka korayaa marka waxaa laga soo daayaa idan glucagon qaybtan ayaa autopsy lagu sameeyay intaan ayaa lagu soo muujiyay marka pancreaska waa kana ganaca from the liver markii waxaa from the liver markii ay tahay sokortani from the liver markii ay tahay glycogen ayaa qaabilsan oo alpha cellska laga soo deynayo ayaa qaabilsan oo waxaa dib ay in loo burburiyo sokortani waxaa kama bile ducts ayaa loo soo mariyaa oo tubadani oo ximiitada ayaa loo soo mariyaa oo markii saan tubadan loo soo marinayo ama pancreatic ductska sameynaya exocrine ayuu shaqeynayaa laakiin markii oo sokorta kale oo kicinayo waxay ka qayb qaadanayaan waxaa waaye endocrine waa gallbladder waa kana oo ximiitada meesha lagu keedinayo keedinta waxaa ximiitada waa gallbladderska duodenal oo mindhicirihi oo weynay waa kana marka jantuska kan haddana isagana fiiriyi bal xoogaa oo xogeer
oo xeer la isbarbardhigay. Insulin stimulates waxa waaye markii waxa waaye after amil markii cunto la cuno kadib waa blood glucose oo increase ayaa kordhay. waa effector wuxuu saameey kabacdi balas waay markii saameyntii ay tahay markii means ay tahay waxa markii la xakameynayo waya taas ogaada. Effector increase in insulinkii waxa uu kordhay marka production by beta cellska macna maxaa la rabaa marka si loo yareeyo markii la yareynayo maxaa waa kan asagana waa negative waay. Glucose move waxay u dhaqaaqaan sokorta marka from the blood into cells reduce si loo yareeyo blood glucose sokorta waxa dhiig ku jirta si loo yareeyo kaasi ayaa qaabilsan marka insulinta ayaa qaabilsan. kan waa kana asagana oo stimulus between waxa waaye oo meal waxa u dhaxeeya marka waxay u dhaxeysaa marka inta cuntada la cunay ayay u dhaxeysaa blood glucose decrease oo yaraaday marka oo yaraaday asagana oo waa la kicinaa marka waxa la carinaya marka pancreatic isletska ayaa la carinaya sensory dareemayaasha wax kana soomaan marka effector wuxuu saameynaya marka increase glucagon production by islets waxa la kordhinaya marka hormoonkan ayaa la kordhinaya si loo soo saaro marka response wuxuu ku jawaab celinaya marka sokorta ayuu ku jawaab celinaya then ka bacd waa kana marka glucagon hydrolyze wuxuu burburinaya sida glucose ay burburinaya then ka bacd secrete into blood waxa lagu sideena marka sokorta dhiiga increase wuxuu kordhinaya marka blood glucose sokorta dhiiga ayuu kordhinaya markii oo sokortan ay kacday la controlan waxa negative feedback markii laakiin la kicanayo positive feedback. Dimayn saad aragto waxa negative macnaha waa la control sokortii la control hadii laakiin balas aragto waxa sokortii la kicinayo waa la si qaldayo macnaha. Okay halkan ayaan ku ekeenaynaa aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin dhageysiga.